dad kan boorama ee dacweeyay kolkay reer hebel maartay halgamayeen maxay qabanayeen hadalkaas waa hadal aad u khatar ah isagana waa reer boorama yaa la leeyahay waaba siyaasi baa la leeyahay waa professor la leeyahay kolkay reer hebel halgamayeen reerkan dacweeyay maxay qabanayeen buu leeyahay جوابتي سمات قرني سندو إلا وحو يوري محي قبنا يينه والسؤال جوابته ما قرني سي كما كان جوابك كلام ما انتين متعلم يقل يري اودا انت واس كوجرتان نيكا جوابتي سكما هيا انا دكو كان مغلبه فريه كسارنت كنت انا دي شيغيا هدي قولدان اي هلغميين او ليهي way halgamayeen maxay ku halgamayeen dawlad Soomaaliyeed oo Afrika ka tirsan oo dawladaha ugu xoog badan ah ayay burburinayeen anaguna taasan daafacaynay anaguna qaranka maanta la waayay ee maanta Soomaali meel laga doon la leeyahay ayaan daafacaynay hadduu su'aashana weydiiyay ilaa halka ay salaamtu naga soo gashay dawaakii calamka halka ka taagnaa waana daafacaynay maanta lama hayo kuma igu qabsanayeen in la haynin qarankii dhanna ma hayna maanta qarankii bariga aan daafacaynay ma hayna maanta Puntlandna ma hayso Somalilandna ma hayso Banaadirna ma hayso xamar laguma hayo Kismaayo laguma hayo meelay markaan laanayn anu maanta haddii Soomaali la weydiin lahaa halkee la mariyaa wadanka Turkiga ku dari lahaa ee muslimka ah Erdogan baan madax ka dhigan lahaa barasaabiyana noo soo diraa wala halka barasaabka Ingiriisku nooga imanayo ka muslimka ah blaamiyada xamar maanta ka dhisay meel walba dhisay muslimka ah ee maanta Arab ka soo haray Arab oo dhan maanta Turkiga la dagaalamay Qatar Sawma labadaas soo haray Suudaan ويدنا لغانيس wax kale oo muslim ku nool ma jiro reer galbeed warkaysa daash kelmada la yidhi sheegaya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la tira ya maanta hada kuwa qaldan oo wadaadihi maanta wax baayaan iyaga soo tarbiyay reer galbeed tan loo keenay islaamku kun iyo 500 sanadood oo hadda ka hadlayo kun iyo 500 bay ku dhawaan macayntii shirada ka horeysa marka isku daro kun iyo 500 bay ku dhawaan kun iyo 500 dawladda islaamka hay'ad magacaanta badan lahay cid kasta oo gaalada nooc walba ku hoos noolaayeen masiix baa ku noolaa buudis baa la noolaa hindu baa la noolaa yuhuud baa la noolaa ilaa inta la nool islaamiga dhabta ee islaamka fahamsani yuhuudinimada dadka kuma diro masiixinimada kuma diro buudisnimada kuma diro laakiin waxaan midida dadka dul haysta iyaga keenay Mareykan bay ka yimaadeen Ingiriis bay ka yimaadeen Yurub bay ka yimaadeen diintaana lagu fool xumaynaya hadda dhalinyaro doonaysan xaqiiqada ururka maanta daacish la leeyahay hadday dhab yihiin kolkay Muusil iyo Ciraaq iyo dhul badan qabsadeen iyo maartay gobolka Xasaka la yiraahdo iyo Barqa iyo dhulka maartaanay ay qabsadeen qof walba gurigiisa u deyn lahaayeen sida islaamku ahaan jiray nabigeena miyaad maqasheen soo guri qof leeyahay ku dilay oo ka saaray maad maqasheen meedaanun baa la isku leeyin jiray dagaal waa la iska horjiman jiray laakiin rasuulkeena iyo asxaabtiisa weligood lagama maqal daday guriyo kul burburiyeen ama qof maartay iska miskiin oo intay soo qabteen ay midi ku gowracayaan lama arag way jirtaa mujrimiin waaweyn oo dagaalka lagu qabto qoorta laga gooyay sida Uqba ibn Abd al-Muayyid iyo kale laakiin waxa weeyaan sumcadda islaamka la dilaya hada waxaan ilaahay maxay qabanayeen reer boorama buuri qaranka la way baan daafacaynay maantana isagii baan raadinaynaa wali hadda ninkii doonayana ay ku qabso ninkii doonayana ha aqbalo